gaarigaan hayaanahayo kama baqayo geerida gaashaan dhiiligaanahay. magacaygu waa axmed cabdulaahi baashane, taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis. darajadeedu waa kabtan. wada shaqeynta waxaan dhihi karnaa 100% maxaa yeelay degmada dhalinyarada u badan, dadka imaanaya dhalinyaro u badan yihiin. dhalinyarada waa ka mid nahay, mana kala maarano, way ayagana nala shaqeeyaan. maxaa qorshe kaaga diyaarsan wada xiriirka dhalinyarada degmada xiriirkooda maadaama dib u soo laabatay ee dhalinyaradii isbedel badan oo ka muuqdo? dhalinyarada waas naqaanaa, waas dhexgalnaa degmada iyo saldhigga iyo haddii xeebta noqoto iyo meel kasta. qaarkood xataa beroni wada dheelnaa marayna, marka waa fahmi karnaa haddaan la wada shaqeyn waxaa laabaya. su-aasha keliya aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan wadada saldhigga agtiisa inaad boolis dhigtaan oo amniga degmada banaanka laga sugo, soo taas kama fiicnaan lahayn in marka degmada lasoo galo aad amni ka sugtaan degmada dhexdiisa? meeshaas waxay ahayd maadaama degmadii dhexdeeda dadka deegaanka ay u badan yihiin, ciidanka booliiska yaqaani way ka howlgalaan. ciidanka haddii badda la keeno, badda waxaa imaana dad magaalo kale ka yimid, laakiin kuwan oo saldhiggu waa ina xaafadda ku jiraan ayaga. nimanka qaraxyada geysanaya wax hadda waa xadadayin ma ku dhihi karno, laakiin amniga haysanana wuxuu u badan yahay 80% dabiici ilaahayna siiyey. inta kale xoogaa orodkeena ku timid. waa dareemaysaa ciidamada habeen maalin taagan yihiin, jid kastana waa xiran yahay, baarista way socotaa. marka waad dareemi kartaa meel walba iyadoo baarista adagto wixii waa dhacayaan.